لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا أغو خطر سواحا كمدا هدينا أغو بخطر سنين شهوة ملكيك إيا مدحني مدى إيا كرسي الرادسك إيا بقرتو يده. الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي امتحان درسي شهوات فربضا، شهوة حولها، شهوة عرورتا، شهوة قلمدا، شهوة مقعة، شهوات فربضا. لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا أغو خطر سواحا كمدا هدينا أغو بخطر سنين شهوة ملكيك إيا مدحني مدى إيا كرسي الرادسك إيا بقرتو يده. إبليس مركو آبهن آدم فتنين ربي وسواسين ربي سيئو جنة أغسو صارو حالك إرد أو فهمي إنو كجلي كرو ولا بي الردود الرد كوبادي وحوي وملكي شعيل الرد اللي بعدنا وحوي واريتان يشيريتان شعيل سازدراد مركو سيرها يوحكويري يا آدمو هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت صار كيد هداد عنتو أدواري أودن دمانين بقرتوية إيا كرسينا آدهيليوت كواري. إبليس وحو فهمي آدمها ميلها لغا قلي إردها أغو مهم سني إني تهي كرسيga إيا بقرتوية دا ماشا سونا آبهن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كسو قلي ودنتي سيكا قاري وچندي لغا سو ساري ودولك لينا كيني ورفادي آفد إنا هيستاي إلهي إنو قري. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحو إنو الشيغي إن مناصبتي كراستي مدحني مدى أتكد دالي دونتان ستحرصون على الإمارة. مدحني مدى وأتكد دالي دونتان دال أدك بادو قلي دونتان أدونك إنت تشوكتان maalinta qiyaamadana waxay noqon doontaa qoomamo iyo nidaamo iyo farta inaad dhexda ka qaninto tiraado allow maxaa ii geeyey macaana markay ku nuujinayso naaskeeda jaqayso magicii iyo jaahi iyo maalkii iyo amartaaglayntii iyo roogii casaa iyo sacabintii فنعمة المرضعة ناس كذيبات شقيسا وبئست الفاطمة بن نبي صلى الله عليه وسلم مركي كو غويسو ناس كا غويسو دب يا آفة مركاسي كو هيستا إني كو غوينيسانا شكي مالا أهو وليجيد ناس كذا نوغي ميسدو كو دغنان ميسد مالين كسن ناس كا أي كاتشرتا لغو جوغا مدحني مدو ومدة ونينكو علمه سأدله إمسان نين ويل كي سأدله كرسي جيبو قبصة إمسان الموالد كي أدله كرسي درتي إمسان نين حاس كي سأدله كرسي درتي إمسان حاس نين كذا أدشي كرسي درتي دتك قوة وجه عشه ود عنتظر يجا كهر مريني ود مجا على عشه وأد وحول بأهور لهيد markay noqoto inay kursi kugu qabsadaan waad khaarijini uma quudhid. kursigu waa shahwada ugu halisan bini aadamka shahawaadkiisa. sidaas daraadeed markay timaado ruuxa muslimka waxa la doonayaa inuu taxadarkiisa qabo. war meeshani waa meeshii lagu halaagsamay. taariikhda marka dib u akhrido oo sijilaadka taariikhda aad soo rogto taariikh gaal iyo taariikh muslimba caalamka wixii fitna soo maray intooda ugu badan waxa sabab u ahaa kursi iyo raadintiisa
jagada iyo madaxnimadaasi mid ku fadhiya iyo mid ka riixanaya oo raadinaya baa adduunka soo rogay taariikhda akhriya ilaa maantana adduunka waxa rogaya taas waay inta markaan ogaano miisaal aynu soo qaadanno qawaacidda miisaalka cadeeya tusaalayaashu maanta waa farbadan yihiin adduunkiina waa isu furmay wax qarsoonna ma jiro caamayguna waa dhagaysanaya waa akhrinaya culimadana warkooda iyo aqoon-yahanka iska badaa adduunka maanta wax qarsooni ma jiro kii hore wax kala qarsoonaayeen ma ah laakiin haddaynu tusaale soo qaadanno Soomaaliya u soo qaadanno waddankaas maanta xaalkiisu saa u yaalo la qaybiyey oo qaybsan la burburiyey oo burbursan dadka ku nooli intooda badan faqriga khadkiisa ay ka hooseeyaan dhalinyaradiisii ay badaha ku baaba'ayso farigelin shisheeye la liicaya oo cid walba doonaysa inay dantiisa ka gaadho mujtamaciisii uusan is haysanin dalka saa u yaala ee dhibkaasi haysto ayaa maanta koox yari ku hardamaysaa hal kursi waxaad isweydiisaan dalkan maxaa halkaa dhigay waxaa halkaa dhigay niman kursi raadisa oo kadibna magaca qabiil huwaday oo isticmaalay iyo mid kursi ku fadhiyo u quuri waayay iyo shacab aan wacyi lahayn oo la isticmaalay saddexdaasaa isugu darmaday dalkan oo uu burburiyey saddexdii burburisay baa maanta 30 sano kadib meeshii laga biloobay baa dib loogu noqday reer bani Israa'iil baa Ilaahay wuxuu ku sheegay 40 sano inuu Ilaahay ku imtixaanay tii iyo jahwareer meeshay subaxdii ka guuraan bay galabtii ku soo noqdaan say u wareegaysanayaan meeshii baynu ku soo noqonnay luqaddu waa luqadii damacu waa kursigii waxa la isticmaalaya waa qabyaaladii luqaddu waa luqadii xasaasiga ahayd ee Soomaali laga taaban jiray meel laga rogaa jira furaha laga rogo waxa kale oo dhan ma diiriso laakiin marka la yiraahdo gobolkeena reerkeena deegaankeenna qabiilkeenna jifadeenna taasaa rugaha ku rogta furaha ku rogo furuhu waa ka furuhu waa furihi hadalku waa hadalkii raggu waa kuwii kuraasta raadinayay meeshii baan maanta joognaa shacabka wacyi la'aantiisina waa dheerta iyadoo waa sideedii waxaan jeclahay 3 farrimood diintu waa naseexo 3 farrimood inaan u diro 3 jiho oo hawshaasi khusayso jiho waa qolada kuraasta ku fadhida jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalinkaana mas'uuliyadiisii iyo tabiicaadkiisii Ilaahay hortiisay ku taala way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed ya maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasnima jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka Ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin
waxaa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax way 20 jir ilaahay uma xilqarinin xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayaad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay war aaway raggii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mid ah زين العابدين كي تونس آوي شين العابدين ده آوي بوتفليق الجزائر آوي مبارك مصر آوي علي عبد الله الصالح يمن آوي قدافي أفرتن سنة كبدا بليبيا كتليني آوي ور آوي مدحدي أدونك واتقان ما أنت هدان هيلي له وحي نوغصو ورما وحا قبرك كو هايستا iyo ilaahay hortiisa waxay la tagi lahaayeen wax badan baa la inoo sheegay laakiin lagu waan qaadan maayo ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacay in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaad waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiigiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa hadaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho hadii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo kaliga oo qaawan adaa mas'uuliyadeeda qaadi doona ku talagal tanaazul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaska baa looga tanaazulaa tanaazul waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kama fi sahih al-bukhari wa ghayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisa xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay minbarka nabigu waa jaleecay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu sal alla alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibn cali ibn abi aalib sanadkii afartanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay وحي اللي اسكو هيي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما سنة كان وسنة كاللغو مقعابي سنة كي مدني مدى مسلمين تا عام الجماعة حديث كي بشارة النبي حقيقة وذي ويل كيقو والسيد إلهينا ومدى مسلم كابو كو إصلاح دونا سيدني مدى قادو أو شرفت قادو أو كرامة قادو أو نين كرسي حوق لقا قاتي شرف ملي نين لإريي شرف ملي nin ummadiisa u tanaazulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduunyo aakhiraba tanaazulo maslaxada u tanaasul fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacawday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koobaad aan u diray waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya ciduu doonuna siiyaa qul illahumma malika almulki tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzi'u almulka mimman tashaa' dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursiga lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayo gacantiisa ku jiro bixiye bal horta rumeeya waa mid labaade kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado tobanna ma qaado toddobana ma qaado hal buu qaadaa kursiga halka qaada waa midkii Soomaaliya intay isku laysay la qaybiyay
oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyay adiguna madaxweynaha tahay kursigii ayaa markii uu ku wada filaan waaya waxay noqotay in 10 kursi oo kala la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landis kana madaxweyne fulaan war kursigu waa mid ilaahayna nimbu u qoray هذه حقيقة بها كما دبعوا مدة صدحات اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشرته دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رقي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفري ستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دلك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين وحان ليا هاي لقد قبيالة دايا هذا الكحنفت لدايا فتنة انت هذا كفوقادا سي مسؤولية دي كتشرت الرقمة يا ذلك أطرا ذلك أطرا ظروفت أمد هيسة أطرا إلهي كبقى قبيالة لقوع العلينيو إلا كعنيو إلا لقوع هالليو إلا لقوع دارنيو ورصوتي هالكاينة دكتي معه ورصوتي أنكوهم قوني معه ورصوتي أنكو تشبني معه wargoormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib goormay shaati kale soo xidhatay soo iyadii uun ma waa iyadii laakiin wajiyada isbedelay shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay maantana waa siyaasi fulaan laakiin wax kale oo isbedelay ma jiro waxaan leeyahay fitnaha abaabulina aafana dalka iyo dadka sabab ha ugu noqonina sharna horseed ha u noqonina fitna lama dhudhumiyo sharna la iskuma dhereriyo waa laga fogaada waana laga taxadaraa ka hortag buu leeyahay ka daba tag male aafadu hadday hurtay hulaacdana nin walbay saamaysaa duruusteedana waanu haynaa waxaan leeyahay oon ugu dambaysiinayaa kelimaadkan qoladaa ku leeyahay ummaddan aad isu keenaysaaneed leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo bannaanada aad isugu keenayseed leedihiin dastuurka noo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinkaa naga yaqaana war bishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaalloo ku faafsan war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwa kale ha ahaadeen war way fududahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydan kontarooli karaynin oo hadday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacbaa imaanaya hanti la burburiyaa imaanaysa mana kontarooli kartaan dowladina ma kontarooli karto been waaye ya dowladaha waaweyn baa kontarooli kari waaye mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxaa ku jira dad xilma kas ah dad waxaa ku jira wax booba cisaabaad ijraan baa ku jira ya war maraykan baa kontarooli waayey oo faransiis baa kontarooli waayey oo ingiriis baa kontarooli waayey oo dowladihii xoogga badnaa baa kontarooli waayey ummaddu hadday dhaqaaqdo lama kontarooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona markaad ummaddan ku khamaaraysaan oo keliya ujeeddadiinnu ay tahay inaad ku abuurtaan كلية بريشر أتكو أبورتان قلدا إذن كسو هرشيدا ووحن ليداهدو محوء هاي عالمك أبورتان بريشر كو أبورتان وشديد إنه إنت هاي واحد دعي كرا يديق دادن كرا يعافد إيمان كرتا يهانتنا بربوري كرتنا
aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiigga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarrad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurka qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idin dejisay Soomaa kii idin kala qaybiyay Soomaa kii landhiska idinka dhigay Soomaa dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka Ilaahay iyo sunnadii nabiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba aqligiina iyo wacyigiina hadduu heer ka joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa iimaan kara maanta ummadda meesha la isugu keenayo maxaa ka dhalan kara qiyaasi la'dihiin mas'aladu siyaasadeed ma mas'alo dawlad loogu hiilinayo ma mas'aladani wax weey waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa bil wallahi thumma wallahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaan nabi maxamed baana sidaa yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiina ilaaliya war ummadana ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxan kada tafarsameeya war isu tanaazula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciina dib u liqa masaalixdi damiciina khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeto loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meesha ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayay gaaladu ay soo taageertay dalka burburiyay waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo reehebel markaan gubanayna inaga dabkii ku gubanay maantana waa sidii way cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa inaga waa shacabka waa hooyada waa caruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war inaga gubanayna waa dalkeeni waa deegaankeeni inagii baa gubanayno dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeena ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wado kursi doonayo awrka inugu kacsanaya inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheero sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheenna ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadana waa wax laynooga faa'iidaystay waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeenu wuxuu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad lagu dili maxaad dhiigaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa ku soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu iimaanayay sacabkaad u tunteen oo waxaad tidhaahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talin oon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkada dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin
hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shaki kuma jiro waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidan oo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna way isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamkay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumadaada iyo wacyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war wacyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii reehebel iyo reehebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa la soo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kilillo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa la soo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid systemkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiise ma dantaadaa ma isweydiise waa markaan leenahay meesha layna geydhsiiyey godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kalea marka waxay u baahan tahay muhimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiinna garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatam al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك